warshada furaashada haamaha biyaha tuubooyinka iyo fadhiyada guryaha way ku baxday in ka badan 200 milyan oo bir ayaa xadhiga laga jaray warshadan oo uu maalgeliye maalqabeen u dhashay deegaanka Soomaalida ayaa laga dhisay duleedka magaalada Shiniile ee gobolka City waxaana furitaankii warshadan ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiin ka socotay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida oo ay ugu horeeyaan wasiirka maalgashiga iyo qurba joogta ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdisalaam Yuusuf wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Bashiir Shaafi mas'uuliyiinta ismaamulka Diridhaba iyo marti sharaf kale oo ka socotay wadamada Djibouti iyo Soomaaliya wasiirka xafiiska qurba joogta iyo maalgashiga ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha ayaa sheegay in maalqabeennada caalamka ay u furan tahay in maalgashi ay ka samaystaan deegaanka Soomaalida sidoo kalena maalqabeennada ay tusaale wanaagsan u tahay warshadan maanta xadhiga laga jaray runtii waxaan oran karaa waa fursadii koowaad ama waa markii koowaad ee maalgashi intan la eg deegaanka Soomaalida laga fuliyo waa markii koowaad ee shaqo intan la eg hantiilayaasha gaarka ay maalgashi u sameeyaan waa maalin farxad leh warshadahan hadda aan maanta xariga ka jarayna hadii la hayra muhiimad badan ayay u leeyihiin shacabka iyo guud ahaan dawladda deegaanka Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida taariikhdiisa markaan dib u raacno waxaan oran karaa maanta waxaan joognaa xilli fiican may suuragal ahayn hadda ka hor inuu qof hantiila ah xoolihiisa intan la eg inuu deegaanka Soomaalida ku aamino dhibaatooyin badan baa jiray maasha Allah waxaan rajaynaynaa arrintan maanta aan xafladeeda isugu imaanay waxaan rajaynayaa inay noqon doonto bilow fiican runtii dad badan oo hantiilayaal ah inay deegaanka maalgashi ku samayn doonaan warshadu ama warshadahan isku dhax jiraayay waxtarkooda iyo waxa ay soo kordhinayaan waxa laga dareemi doonaa dhaqaalaha dadka ay shaqo abuurka u sameeyeen warshaduhu waa laf dhabarta horumarka wadanka waa laf dhabarta horumarka deegaanka waxay qayb weyn ka qaataan dhammaan kobaca dhaqaalaha waxa ay yareeyaan soo dhoofitaanka waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo waxa ay kordhiyaan waxyaabaha dibadda loo dhoofiyo ama export lagu sameeyo waxa ay soo xareeyaan lacagaha adag ee wadanka dhaqaalihiisa kor loogu kobciyo runaantii waxa deegaankeena waayahan dambe si fiican meel fiican maraya soona kordhaya kobaca ganacsiga maalgashiga warshadaha oo meel fiican maraya ganacsigu waa barakeysan yahay waa waxa wadanka iyo caalamka oo dhan ku kala socdo waa dhaqaalaha adduunka oo dhan uu ku taagan yahay waa laf dhabarteena waxaan u baahanahay ganacsatadeennu inay ku daydaan cilmi maalqabeen xaaji cilmi geesood milkiilaha warshadan ee samaynaysa saddexda wax soo saar ee kala duwan ayaa sheegay in warshadan halkii saacba ay soo saari karayso 10,000 ilaa 20,000 oo furaash taasoo ay shaqo abuur ka helayaan dhalinyaro badan iyadoona goobta warshada laga dhisay hadda ka hor ay ahayd xero dad badan oo Soomaaliya lagu xasuuqay taasoo cidii soo gashay adkayd inay si nabad ah uga soo noqoto hawshani dhowr sano soo socotay waa run waanad mahadsantihiin si aad nagu soo sharifteen ilaahayna uu noo dhib yareeyay inaan maanta xadhiga ay ka jaraan mas'uuliyiinta waxaana nagu talagalay in aan fursado jira ka faa'iidno dadkana u faa'iidino gobolka u faa'iidino u tusnana model amba example anfastarada looga baahan yahay mandaqada 4 sano horteed waxaan ka sameynay warshad tan ka yar laakiin wax badan soo saari karta jigjiga tiina waan dhaqaajinay tanina waan ku biirinay marka hadda waxa iska leh oo mahadlaqaya dawlad deegaanka Soomaaliyeed iyo wixii kale ma garanaysaa meel ka saan uga baahnay inuu noo dhib yareeyay khaas ahaan wasaaradda maalgelinta wasaaradda
tijaaradda iyo qorshaha. dhankooda marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadan xadhigga lagaga jarayay warshadan ayaa sheegay in loo baahan yahay in maalqabeennadu ay ku daydaan xaaji cilmi. abuurta Soomaali xera ciidan bay ahayd waxa la wixii soo galay dad iyo duuyo laba arkay xaraan bay ka tahay waxa weeye ilaahay waxaan ugu xamdeeynaa 100 goor ilaahay baan ku xamdeeynaa tahay raaskiisa qaada raaska dadka kale lacagta aasanaya ha qaadina ninka ku dayadaan leenahay ninka ku dayada inta waa iga dardaaran waxaan leenahay xaajiga ilaahay ha u barakeeyo hantida badan ee uu xaggan iyo jigjiga iyo meelaha badan ee Soomaalidu degtaba geliyay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay u barakeeyo adduunkiisa iyo aakhiradiisaba uu ku liibaano hantida uu geliyay xaajigu sidoo sheegay inta wiil ee Soomaaliyeed ee xagga fadhida ee ka shaqo gashay iyo kuwa jigjiga ka shaqo galay iyo dadka intaas oo qoysay ka soo jeedaan dabkooga uu shiday baa ugu filan in dambi dhaaf iyo aakhiro uu miisaankiisa xasanaadka ugu biiriyo xaajigana waxaan leenahay Allah cimriga iyo caruurta iyo xoolaha Allah ku barakeeyo. warshadan waa warshad aad u ballaaran runtii deegaankeena maxaan ku dhahaa warshadii ugu horeysay maadarataan intaan joognay aan aragno annagu hadda madaxda dhaqanka nahay garabkiisa nahay waxa la loo nooga baahdo garabkiisa nahay bulshada ku dhaqan degmada Shineele abalaha Tooma iyo kan waxaan leenahay in maadarataan ay qaybtooda ka qayb qaataan warshada amnigeega iyo wax soo saarkeega ka qayb qaataan aad baa mahadsantihiin. gabagabadii mas'uuliyiinta ayaa kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee warshadan. xasan maxamed SRTV Diridhaba.